Asxaabtayda waan idin salaamay dhammaantiinba. Maanta waxaan idiin hayaa qiso dhab ah oo ka dhacday Raashka. Haddii aad Googlaha ku qortana aad ka helaysaa Abutekin Village waqtigii 1787 Abutekin Village Raashka ka dhacday. Waa qiso dhab ah. Boqortooyadii waqtigaa jirtay waxay wajahaysay faqri, poverty, dagaalo sokeeyo, adigu hoos u dhac dhaqaale, waxyaabo badan. Marka waqtiga wasiirkii ama arrimaha u xilsaaraa boqortooyadu u xilsaaratay horumarinta dalka oo looga doonayay inuu xalliyo baahiyahan iyo rabshadahan iyo dagaalada sokeeya baa wixii markii uu wajahay buu xal u waayay. markuu xallin kari waayay buu wuxuu bilaabay inuu dadkii ku amro inay magaalooyinka laydhadh ku xidhaan dhaldhalaalaya, rinjiyo markay mariyaan oo ekaadaan magaalooyin horumaray, la xaadho, la nadiifiyo, dadkii qasab la garaaco, ciidamo lagu fasaxo si ay ugu ekaato magaalooyin nool. hadda dadka baahiba waqtigaa u jiifaa oo dagaalo sokeeyaa socda, waddanku burbur buu qarka u saaran yahay. dadkii markaa boqortooyadii markii ay soo dhex martay waxay aragtay magaalooyin dhalaalaya, dad xoog lagu soo saaray oo wejiyadooda qosol beena oon gudaha dhaafsiisnayn, gaajaysanna ay ka muuqato. markaasay isdheheen dhalaalkan iyo rinjiyadan marsan magaalada waddanku waa horumarsan yahay oo waa dhisan yahay, waddan hadda hoosta ka dumaya. marka rinjiyeyntan, laydhgelintan, waxyaabahan wana looga horreeyay saaxiib.